halkani waa Farash TV oo aad kala socon kartaan wararka geeska iyo gayiga ay Soomaalidu degto kuwooda ugu muhiimsan. Qodobada ugu doorka roon wararka aan idin haynana waxaa ka mid ah ciidamada TPLF oo sheegay inay gacanta ku hayaan ciidan Soomaaliyeed oo dagaalkii waqooyiga Itoobiya ka dhacay ka qayb qaatay. xisbiyada mucaaradka ah ee Oromada oo ku dhawaaqay dawlad ku meel gaar ah. Jamhadda xoreynta Oromada oo magaalooyin waaweyn oo deegaanka Oromada ka mid ah gacanta ku dhigtay. dawladda Itoobiya oo wada xaajood nabadeed ugu baaqday jamhadda mayalka adag ee TPLF. fadlan haddii aad nagu cusub tahay janaalka subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u hesho xogaha ugu dambeeya ee janaalka. fiidiyowgan like saar, share ku qabo oo la wadaag asxaabtaada. wixii kala bixinana xagga hoose nagu reeb. kusoo dhawaada qodobadii wararkeena oo tafatiran, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Marwo Yusuf. ciidanka Tigreega ee jamhadda mayalka adag ee TPLF ayaa cadeeyay in dagaalkii lagula jiray shacabka Tigreega ee ay ku bogoobeen ciidamada difaaca qaranka Itoobiya, kuwa Eritrea iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Imaaraadka inay qayb ka ahaayeen ciidamo Soomaaliya ka yimid oo tababaro uga socdeen dalka Eritrea. jamhadda ayaa tibaaxday inay waqti xaadirkan tobaneeyo ka mid ah ciidankaas gacanta ku hayaan, iyagoo maxaabiis ah oo ka mid ah kuwa ay ka qabteen ciidamada Itoobiya iyo Eritrea. waxay intaas ku dareen inay dhowaan shaacin doonaan muuqaalada dhalinyarada Soomaaliyeed ee ay gacanta ku hayaan. xisbiyada Oromada ugu tunka weyn ee OLF Oromo Liberation Front iyo OFC Oromo Federalist Group ayaa ku dhawaaqay yagleelidda maamul ku meel gaar ah oo muddo 3 sano ah ka arrimin doona deegaanka Oromada. waxayna u sababeeyeen yagleelidda maamulkan caqabado ay sheegeen in shacabka Oromada ay gaar ahaan u haystaan. waxay sheegeen in dagaalo gudaha iyo dibadda ah ku fureen ciidamada Axmaarada, militariga iyo kuwa Eritrea. waxaa kaloo ay ka hadleen tacaddi, xadhig, dil iyo dhibaatooyin kale oo ay sheegeen inay la soo darseen shacabka Oromada. xisbiyadan ayaa haddaba hoose ka xariiqay in deegaanka Oromadu noqday furin dagaal martigelisay oo aysan ka jirin dawlad adeeg bulshada siisa. maamulkan ay dhiseen ayay soo bandhigeen shuruucda lagu maamulayo iyo qaab dhismeedkiisa, wuxuuna noqonayaa gole ka kooban 337 xubnood oo ay ku bogoobeen xisbiyada OLF, OFC, bulshada rayidka ah, culimada, dhalinyarada, haweenka iyo oday dhaqameedka Oromadu. ciidanka xoreynta Oromada ayaa sheegay inay gudaha u galeen magaalooyin waaweyn oo ku yaala deegaanka Oromada, iyagoo sheegay inay kala wareegeen ciidamadii dawladda ee halkaas gacanta ku hayay. jamhadda xoreynta Oromada ayaa wada howlgallo ballaaran oo ay sheegeen inay kula wareegayaan deegaankooda, waa sida ay hadalka u dhigeen. ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dhamaka Mukanin ayaa sheegay inay dawladdiisu diyaar u tahay inay wada hadal nabadeed la samayso jamhadda mayalka adag ee TPLF waqti ay xeero iyo fandhaal kala dhaceen kadib markii awood lagu muquuniyey ciidamadii huwanta ee ahaa suuqwadareedyada, tacaddiga aan loo meeldayin iyo dembiyada dagaal ka geystay gobolka Tigray. hadalkan ayaa imanaya xilli ay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladdiisu argagixiso u aqoonsatay TPLF bilo yar uun ka hor. haddaba maxaa isbedelay? maliiskii argagixisada ayaa laga saaray TPLF
sidee ayay ku suurtoobi kartaa in urur argagixiso loo aqoonsan yahay wada hadal lala sameeyo? ku-xigeenku wax faahfaahin ah arrintan kama uusan bixinin, laakiin wuxuu sheegay oo keliya inay dowladdiisu diyaar u tahay wada hadal nabadeed inay TPLF la yeelato. dhanka kale weli TPLF ma soo hadal qaadin wax wada xaajood ah inay gelayso iyo in kale, balse keliya waxay sheegeen inay halganka sii wadi doonaan ilaa iyo Addis Ababa.